sharaf laho dalkay dhiigow shuban shaqaalaha daacaddi dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن أقاسمها مشروع شقة قرن قبل كتور إن اللوجي قانون أقاسم النجية أيانو بحنا مقعصنا وتقدر رجع بحنا سببت واحد هاي لأن يردي بحكون وطنكي مشروع عادي successful إن مضح ذا سراكيشة iyo ciidamada dugsiga tababarka ee Darweyne ardayda halkan maraysa oo dufcadii labaad ee mashruuca shaqo qaran gobolka Togdheer ka maraysa waxaan agaasimeeyay ku wareejinayaa 95 arday oo kamid ah ardaydii Burco ee gobolka Togdheer dufcadii labaad mashruuca shaqo qaran successful ka ardaydii guuleysatay ayaan idinku wareejinayaa waxaan idinku wareejinayaa maanta dugsiga tababarka iyo agaasimihii shaqo qaran inagu wixii dardaarana iyo ballana waynu soo nili waa qabtaan dardaarana waa qabtaan maanta laga bilaabo waxa idin bilaabantay nolol cusub oo ka duwantii hore tababar adkaysi iga guddoon agaasimi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madana guddoomiye waanu kaa guddoonay dhalinyarada kusoo guuleystay nasiibku siiyey inay ka mid noqdaan dafcadda labaad ee shaqo qaran sanadkan 2020ka ilaahay baa mahad leh mar walba mahadda labaad waxaynu u naqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo idin abuuray barnaamijkan maanta fursad idin siiyey inaad noloshii halkan ka bilowdaan shaqooyinkii iyo arrimihii oo dhan halkan idinka bilaabmaan iyadoo aan cid abaal idinku lihi jirin ee qalinkiina ku soo baxdeen madaxweynaha mahadda leh waxaynu mahadnaqaynaa dhammaan ciidanka halkan idinku hayn doona muddada aad joogtaan ee 3 bilooda oo ah macallimiin iyo maamul iyo talis xilkasa oo la soo xulay oo idinka la idin soo xulay oo aqoon fara badan u leh tababarada oo aqoon fara badan u leh nidaamka ciidanka dhamaan ciidanka halkan joogo dhamaan macallimiinta iyada ama taliska bay idinahay waa ragii aqoonta jaamacado fara badan bay ka soo baxeen oo ka badan inta idinku soo badateen oo wadamada dibadooda waa ragii wadamo fara badan lagu soo tababaray qudhoodu waan isku soo dhaweynaynaa dugsigan shaqo qaran ee ku jiri doontaan muddadaas maanta waxa idin bilaabmaya barnaamij cusub waxa lumin doontaan xorriyada fara badan oo markii hore la haydeen ayaa lumin doontaan waxa la idinku dhaqayaa sharciga ciidanka soo diyaar uma tiidin haddii la yiraahdo nixina sharciga ciidanku ma aha wax culus aadan afkaab 250 sanadood buu ciidanka taliyo maantana waa orodkana wuu idinka dheereynayaa 120 jeer ayuu ka soo booday parachute ciidanka wuxuu ahaa daladaha ku booda isagoo 250 sanadood shaqeynaya ciidan ku soo jiray orodka maanta wuu idinka dheereynaya wuu idinka caafimaad badan yahay waxaas waxa weeyaan dalkaaga markaad u shaqeyso ilaahayna caafimaad buu kugu bedelayaa wanaag ayuu ku siinayaa wuu dhaqan yahay haddaa xitaa ka fikirtaan xagga dhaqaalaha anigayga idinla hadlaya aabbahay waa ciidanka ilaa iminkana wuu shaqeeyaa waa corneyl ciidamada ka mid ah wanaga soo gaadhnay weli isagoo shaqeynaya 750 buu ciidanka ku biiray waqtigii Ingiriisku joogay dhulka waxaan uga jeedaa taas qofka marka xalaal uu ku soo koro isaguna xalaal cuno ilaahay baa u bedela qofna arsaaq qof walba arsaaqdiisu way qoranta ciidanku wuxuu dheer yahay waxaas oo dhan sharafta kuliyaddan iminka inagu xigta waa jaamacadda ciidamada ugu sarreysa waxaa ku jira 158 leyli sarkaal ku jira oo ka mid ah dhalinyaradii kala hore halkan ku jirtay oo habla ku jiraan 10 hablood tababarka iminka qaataan hablaha bay nimadii ka dheereeyay hadday noqoto shiishka hadday noqoto orodka
مع كمان دوسكي واحد والبوي برتان كلاس بيجلان تي كلا عيدا كي برتان مركا عيدا كوا شرفتا سوليه حارانو بقى كمان واحد كلام كمان غني ماشي شرفنا ويليهين وأنا سولو ويننا كسولو هذا وده هالكن شوكتان واحد اللي يذكر شيء يا أنشح وناكسن أمر قادشوا معلميتنا مقاشان معلميت عيدا كي تبرز يا معلميت السيفل كمعلمين السيفل إنه ودي مدونا السيفل إدكيشن يدي نيجي دونا أنتي نالك شوكتا واحد لقي بين إذا نقولين حقوق ذا أطلع هاي وضع كمواطن هان أطلع يواجب كذا كساران مواطن هان إنه إذا نقوم بالغياب وهالك كبرني سوا هالكن قف كنا أدوس كنوا لي هاي أنا أقول حقوقي واجب ده هو مشكلة أنت هالك كوش بتاع رجينا أنت إن أنتو كان شرينين تكتو مساجد باكو يلا إن تكتان كي أنتو كان شرين هاد بلعب هالك نروح بلعب يا وايو واحد والبا حقوق ريال الله كعبسي قف أنا إلهي أقول أمان كعبسنيني معنا ما لها نولش سنوا خسارة كي بالود دي هاي لاو هذا قاعد عوني شيء كاك على هالكا وهالكا تكون دين لهيد هذا سيار عبي تيس كده وايو كان سكوا أنا هالكا تكون لابي لهيد أنا تهاي بالود هذا لهيد لأن يرى عدكم ما له سوا كوي شلة تيميد حلا يكليه هو إذا هالكن وحاول بلا ما يتوابرك إذا نو يدين بلا ما يا waxaan isku dardaarmayaa mar walba inay u dhaganugulaataan macallimiintiina wax maqashaan tababarka ku jirtaan waa tababar isugu jira madani iyo ciidan labadaba inay wax ka faa'iideysataan oo dareentaan maaha wax khasab iyo cadaadis leedinku sameeyo oo leedinku dhibaya maahe waa wax idinka leedin faa'iideynayo physically aqliga ahaan iyo yashirahaanba waxa ka faa'iideysanaysaan عافمات بقى كلا تجيسان هالكن جروب كي ذكور ريد دفعتي كواد رجي مدياجو حوجيستي أو عافمات قبايا نجتين قف كلي أنت هالكا وكل شيء ودي وضع عام من دم وعرق قفنا كمان دمان دليل ردي كالهراء يجو عافمات قبايا جريه دي عن كعلني إذا كان إلهي إذا كيف حرشين إذا كان وضع عافمات قبايا أو واحد بدن يدين كوردان أو متذكر نقضي إن كان نقضون تان هالكن waxaan idin leeyahay burco waa magaalo waa hooyadii labaad waa caasimadii labaad waa magaaladii hoodadu lahayd aftahanimada waa magaaladii hoodadu lahayd xagga ficilka iyo spiritka inay wax soo dhacsadaan waa magaaladii tiri hadday kubadda ku dhaafto yaa ninku ku dhaafi spiritkii imika waxaa ugu bedelaysaan akhlaaq wanaag inaad dadka soo dhoweysaan inaad dul qaadataan إنا قبكي يهنكي إذن كتير يعوان النماد يهلك هركو لاوة صدح لاوة صدح نوال إذا كان نسيا صدح واي لاوة إنسان قبل لو برشا بدأ بعد لتشعد عدي ودويد أما الله علينا إلو ضد عصبات برنيسا ضد إنا بيرتو ومدة حناتو كتلقى صدحنا إلو وقت عاد لميسو إلو وهالك نولش لقى بلابا سوكل شيء وايو أفرت هبينما لقوا كعنايا سجالك هبينما أيا أدو دالن أما أو أن شركون ولا تسحنيسا إن يربح ساتو تولو بحساتو إن داشو إن صاحب المانتا يربح صو يرقيلو دبنس حبيتي ذو كرويدو ودبنا معلك هاس قبستان هالك المستقبل ما دوستمي الباب كي يدي كله هو مستقبل كمان تمريسان هالكي نولش كبلابي ما مريسان ثاني سبعي هم قرن كدوسيي ودل كدوسيي ومدن سيني واحد يكون كورتين لهين تبارك وفائدو شنتر ورجن ينفعز هذا سيبل كبيرته دوتو يهدد مرتر كبيرته صدح والد كدسيا مسكحده والد كدسيا دد قلبي قال والد كدسيا شركه والد كدسيا waxa laydin carbinaya ina leadership noqotaan ina wax hogaamisaan ina wadaninimada barataan ina dulqaadka barataan ina wax hogaamin kartaan baa idin baraya madaxnimo laydin carbinaya marka horeysa ilaahaynu ka yaabno nabiga maxamed aanaynu ku sallino
salawaatullaahi calayhi wasalaam. marka xiga agaasimaha guud iyo staafkiisa iyo shaqaalihiisa, guddoomiyaha gobolka Togdheer iyo dhallinyarada uu hogaaminayay iyo shaqaalihiisa, taliyaha kulliyadda iyo saraakiishiisa iyo ciidankiisa, taliyaha akadeemiyada shaqo qaran oo tan aan joognaa oo ah akadeemiyadda cadaaladdanan u aqaan, iyo staafkiisa, dhallinyarada aynu xafladdan u qabannay oo khudbaddeedu hadda ay ku eg tahay uun gobolka Burco iska leh iyo madaxdiisa. horta marka hore waan soo dhowaynaynaa oo soo dhowaada ku soo dhowaada kulliyaddii cadaaladda. maxaan kulliyaddii cadaaladda u lehay? waxaa lagu shaqo tegi jiray awal xildhibaan, wasiir, suldaan, wax noocaas. dhallinyarada badankeeduna qaar waxbarashadaba dhexday morali u fadhiisanayay, jaamacaddaba ma gaadhay. qaarna way tahriibayeen oo halkaasay badday ku gurmayeen. madaxweynaheennu waa mufakir, allaha ka jasaa'i siiyey. fikirkaa wuxuu keenay in dhallinyaradii ay wax barato oo ninkii markaa qarankiisa ku shaqo tago, in mustaqbal loo sameeyo oo ay markay jaamacadaha ka soo baxaan inay meel shaqo tagaanti. kii wax baranayey ka kalena berri buu soo alqaamaya oo isla kii imtixaanka maanta laga helay berri doorka dambe u helaya oo waxa weeye reader buu noqonaya, waxbuu akhriyaya. marka ilaahay moogta xoolo ku siinayana dadkeedu ku siiyaa. mu'adinka iyo oo isaguna cajaa'ibati oo meel walba idinkaga warhaya, habeen iyo maalin u heegana hawsha sidii dhallinyarada mustaqbal loogu samayn lahaa. waxaa soo raaca ciidanka qaranka oo isaguna dee halkan diyaar idinku ah. kulliyaddani markaa waa kulliyaddii cadaaladda. horta qabyaaladii iyo cadaalad darradii labadiiba way baabisay. gobollada tuulo walba oo uu ka yimaada inankii ka yimiday waa halkaasaa lagu kulmayaa. hadda waa la isku kiin dhafayaa. waxa weye waa isbaranaysaan, waxaad yeelanaysaa saaxiibo marka dambe fara badan ilaa low yacaddo ilaa iyo baran. waad yar madmadoobaan doontaan oo hadda dhalaalkan iyo waxaan uu iska tegi doonaa wiigga hore, laakiin markaad meesha ka baxdaan dee moogtahay shacni baa idinka soo bixi doona qurux eed shaqo tagtaantii oo dad muddo kale oo dadkii waalidiintii ku farxayaan, dadkii ku soo tabcay, macallimiintii waddankii wax taraya, wasaaradaha meeshuu doonu tegeen, koorasyo caalamkaad heli doontaa. waa ninkii laakiin la yimaada adaab, ismaqal iyo kala dambayn baa ugu horraysa nolosha. dareenkooda sharneceb dulmigu waa shay ka maqan, dadkana shuush kuma ridaan. dareenkooda sharneceb dulmigu waa shay ka maqan, dadkana shuush kuma ridan. dadyow sheekhiya shari shaqada qaran waa dugsiga shaqo qaran. shaandhaysa muwaadinkee dadaalku shaqaysta oo shaqo qaran. damiiraan shaasha qabin, damiiraan shaasha qabin, madaale ku sheeg